Assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada wararka qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo dalka Eritrea kula kulmay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Qatar iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed haddaba dawladda Qatar imise lacag ay ku bixinaysaa musharaxnimada madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Roble oo waji kale oo cusub la soo baxay kadib markii uu diiday amar uu siiyay madaxweyne Farmaajo liiska golaha wasiirada oo dood adag ay ka taagan tahay ra'iisul wasaare Roble oo shaaciyay xilliga uu magacaabayo golihiisa wasiirada xogo dheeraada ayaan idinkaga hayaa madasha xisbiyada qaran oo qarka u saaran inuu burburo kadib khilaafkii ugu xumaa oo soo kala dhexgalay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed xogo ku saabsan khilaafkaasi ayaan idin soo gudbin doonaa rasaas culus oo ka socota xiro ciidanka militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho iyo dagaal toos ah oo socda ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo safar degdeg ah ku aaday dalka dibadiisa waxaana la ogaaday qorshe culus oo uu la damacsan yahay madaxweyne Farmaajo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo mas'uuliyiin ka tirsan Imaaraadka Carabta oo heshiis halis ah ku gaaray magaalada Nairobi amaro culus oo la duldhigay wasiiradii xukuumadda ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre maxay tahay amaradaasi warkeena ayaad ku daawan doontaan wararka caalamkana waxa kamid ah madaxweyne Trump oo ka hadlay xaaladiisa caafimaad isaga oo ay daal ka muuqato wararkaasi oo dhan ayaa daawan doontaan fadlan daawada haddaad ku cusub tahay janaalka subscribe saar sidoo kale like saar muuqaalka si uu u gaaro asxaab badan waa habeen axada isniin ay soo galayso taariikhdan ay ku beegan tahay 4 Oktoobar 2020 warkii oo faahfaahsan aan ku bilaabay ra'iisul wasaare Roble ayaa waji kale oo cusub la soo baxay kadib markii uu diiday amar uu siiyay madaxweyne Farmaajo kaasi oo ku aadanaa liiska golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la soo baxay waji kale oo aan ahayn kii hore ee lagu yaqiinay xog ay heshay Fagaare Production ayaa sheegaysa in ra'iisul wasaare Roble 1 Oktoobar loo gudbiyay liiska magacyada golaha wasiirada balse ilaa iyo hadda uusan ku dhawaaqin toddobaadyo badan oo uu waday la tashiyo ku aadan golaha wasiirada wuxuu u gudbiyay magacyada liiska golaha wasiirada madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si uu u arko soo xulista uu sameeyay ra'iisul wasaare Roble wajiga cusub ee uu la soo baxay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble wuxuu yahay inuu diiday 1 Oktoobar inuu magacaabo golihiisa wasiirada wuxuu kale diiday dhowr wasiiro ah oo uu madaxweyne Farmaajo rabay in lagu daro liiska balse ra'iisul wasaare Roble uusan ka helin shaqadooda wuxuuna si cad u yiri ma aqbali karo madaxweyne sida uu nala wadaagay qof ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ra'iisul wasaare Roble oo aan weli soo dhisin xukuumaddiisa ayaa wajiga u bedelay madaxweyne Farmaajo iyo madaxtooyada wuxuuna muddooyinkii u dambeeyay uu xafiiskiisa ku qaabilayay siyaasiyiin badan oo mucaarada liiska golaha wasiirada waxa ka soo dhex muuqan doona wasiiro badan oo ka tirsanaa xukuumaddii Xasan Cali Kheyre sidoo kale waxa ka soo dhex muuqan doona siyaasiyiin badan oo mucaarada waliba aad u mucaarada madaxweyne Farmaajo madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiirada uu rabo inuu magacaabo waxa kamid ah Salaad Cali Jeelle oo lagu xanto inuu yahay la taliyaha madaxweynaha ee dhanka siyaasadda Cali Yare oo ah nin u qaabilsan madaxtooyada dhanka baraha bulshada iyo shakhsiyaad kale oo badan oo weli magacyadooda aan la soo gaarsiinin Fagaare Production dhanka kale ra'iisul wasaare Roble wuxuu rabaa in golihiisa wasiirada uu ku darsado Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah siyaasi mucaarad aan gamban ku ah dawladda madaxweyne Farmaajo xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya sidoo kalena kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo kuwa kale oo badan oo weli magacyadooda aan baadi goobayno balse Roble uu rabo inuu magacaabo maanta ra'iisul wasaare Roble wuxuu u safray dalka Kuwait isagoona halkaasi ka bilaabaya kulamo badan oo uu la qaadanayo mas'uuliyiinta dalkaasi Kuwait madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta gaaray dalka Eritrea ayaa kulamo qarsoodi ah la qaatay madax ka socotay dawladda Qatar haddaba dawladda Qatar sidee ayay u saameyn kartaa doorashada Soomaaliya miyay Qatar taageeraysaa musharaxnimada madaxweyne Farmaajo waxaa bilowday tartan culus oo ku aadan doorashada Soomaaliya iyadoona ololihii ugu dambeeyay ay wadaan madaxda hadda talada haysa iyo madaxdii hore ee dalka maanta safar kala duwan ayaa loo baxay madaxweyne Farmaajo oo ku sugnaa Suudaanta Koonfureed wuxuu maanta gaaray magaalada Asmara ee dalka Eritrea waxaana halkaas ku soo dhaweeyay dhigiisa dalka Eritrea Asias Afwerki ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya isna wuxuu maanta u baxay dalka Djibouti ra'iisul wasaare Roble isna wuxuu aaday dalka Kuwait sidoo kale qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada sida Puntland iyo Jubbaland waxay joogaan magaalada Nairobi Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa kamid ah siyaasiyiinta Nairobi joogta waxaa la filayaa inay ku biiraan Xasan Sheekh iyo mas'uuliyiin kale waxaa durba bilowday ololaha doorashooyinka dalka iyadoo siyaasi walba uu aadaya dalka uu arko inuu gacan ka siinayo inuu ku soo baxo ama uu ku guuleysto musharaxnimada dalka
doorashada dalka ka dhacaysa 8 Febraayo ee sanadkan waa mid aad loo sugayo lana xiiseenayo isla markaana ah tartan xoogan waxa isa soo sharaxi doona siyaasiyiintii ugu badneyd balse waxa taagan cabsi ah in dawladda shisheeye ay firgeliyaan doorashada Soomaaliya ama musharaxii ay doonaan ay lacag badan ku bixiyaan dawladaha inta badan firgeliya doorashada Soomaaliya waa Qatar iyo Imaaraadka Carabta oo la yimaado qofka ay rabaan isla markaana lacag badan ku bixiya maanta madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu dalka Eritrea kula kulmay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Qatar iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed wuxuuna kala hadlay musharaxnimadiisa doorashada soo socota isagoo ka codsaday inay garab ka siiyaan sidii uu ugu soo bixi lahaa doorashada Soomaaliya ka dhacaysa Qatar iyo Imaaraadka ayaa ku tartamaya doorashada Soomaaliya Imaaraadka wuxuu maalgelinayaa iminka isla markaana ay lacag ku bixinayaan mucaaradka sida Cabdiraxmaan Cabshukuur Warsame Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo kuwa kale oo badan dhinaca kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu maanta gaaray dalka Eritrea madaxweynaha ayaa soo dhaweyn heer sare ah loo sameeyay waxaana qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha dalka Eritrea Asias Afwerki iyadoo labada madaxweyne ay ka wada hadleen horumarinta xiriirka labada dal iyo arrimaha doorashooyinka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo gabagabeeyay socdaal uu ku tagay dalka Suudaanta Koonfureed sidoo kale wuxuu dalkaasi kula kulmay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo uu kala hadlay arrimo badan oo ku aadan doorashooyinka dalka rasaas culus ayaa hadda ka socota xirada militariga Damaanyo oo ku taala nawaaxiga degmada Dayniile ee gobolka Banaadir kuna dhagan xaruntii hore ee kuliyadda ciidamada Jaalisiyaad xiradan ayaa waxay saldhig u tahay kuna xareysan ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka oo sidoo kale halkaasi ku qaata tababaro dadka deegaanka waxay inoo soo sheegeen in ku dhawaad muddo 30 daqiiqo ah oo xiriira gudaha xiradaasi laga maqlayay rasaas xoogan oo ka dhacaysa taasoo u muuqata mid la isweydaarsanayo isla markaana ay tahay dagaal toos ah wali lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambaysa rasaas laga maqlayo gudaha xirada Damaanyo oo ku taala degmada Dayniile iyo in halkaasi uu ka socdo iskoorimaad iyo in kale wixii ku soo kordha warkan waxaad kala socon doontaan page-ka Facebook aan ku leenahay ee Fagaare Production fadlan like saar page-kaasi madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa heshiisyo culus la galay Imaaraadka Carabta xilli uu ku sugan yahay dalka Kenya madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo jimcihii gaaray Kenya ayaa heshiisyo cusub la galay mas'uuliyiin ka tirsan Imaaraadka Carabta xubno la socda wafdiga madaxweyne Deni ayaa Fagaare Production u sheegay in Deni uu heshiisyo cusub la galay Imaaraadka Carabta heshiisyadaasi oo salka ku haya doorashooyinka Soomaaliya sidoo kale mas'uuliyiinta Imaaraadka ayaa Deni kala hadlay danaha dawladda Imaaraadka ee Soomaaliya iyo saameynta ay doonayso inay Imaaraadka ku yeelato doorashada dalka ka dhacaysa Imaaraadka waxay Deni u sheegtay inay siinayaan lacag malaayiin dollar balse madaxweynaha Puntland ka codsadeen inuu ka soo horjeesto heshiiskii Muqdisho lagu gaaray dhawaan heshiiska waxa kale oo qayb ka ah in madaxweyne Deni uu si dhow ula shaqeeyo musharaxa ay wadato dawladda Imaaraadka Carabta oo aan wali si rasmi ah loo ogaanin madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa wajahaya xaalad adag marka loo eego jabiga siyaasadeed ee uu dhex muquuranayo Deni ayaa xogta aan helnay waxay sheegayaan inuu musharax noqdo si uu madaxweynaha Soomaaliya u tartamo xubnaha ay taageerayso dawladda Imaaraadka ayuu qayb ka noqonayaa hadduu ogolaado dalabka la hordhigay wasiir ka tirsan xukuumadii Xasan Cali Kheyre ayaa amro culus la duldhigay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo saaray amro cusub oo cadaadis hor leh ku saarayo wasiiradii xukuumadii Kheyre ee xilgaarsiinta ah ra'iisul wasaare Rooble ayaa faray xubnaha golaha wasiirada ee xilgaarsiinta inaysan keligooda go'aan gaari karin isla markaana ay tahay inay isaga la soo wadaagaan wax kasta oo ay qabanayaan ka hor inta aysan go'aan ka gaarin sidoo kale wuxuu xubnahaasi faray inaysan soo saari karin qoraal uusan ogeyn iyada oo uu ku waajibiyay inuu nuqul ka mid ah qoraaladaasi ay soo ogeysiyaan ra'iisul wasaaraha iyo siyaayaha ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka wuxuuna xusay ra'iisul wasaaruhu inuusan marnaba aqbali doonin tallaabo kasta oo ka hor imaanaysa awaamirta cusub ee uu soo saaray xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya waxa aasaas u ah ku dhaqanka dastuurka xeer hoosaadka golaha wasiirada shuruucda iyo xeerarka u yaala jamhuuriyadda waxa ayna ku shaqaynaysaa daafurnaan isla xisaabtan iyo dawlad wanaag ayuu yiri warqad uu soo saaray Rooble sida Fagaare Production ay ogaatay arintan ayuu Rooble uga hortagayaa in muddada uu soo dhisayo xukuumad cusub ay dhacdo magacaabis iyo isbedelo ka dhaca wasaaradaha ay gacanta ku hayaan wasiiradii xukuumadii hore waxaana xusid mudan in go'aankii ra'iisul wasaaraha uu og yahay oo ay ka wada socdaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu dagaal dadban la galay ra'iisul wasaarihii hore iyo xukuumaddiisa ugu dambeyntii wuxuu faray xubnaha golaha wasiirada ee xilgaarsiinta inay muujiyaan waxqabad ay mas'uuliyad ku dheehan tahay isla markaana looga baaqsanayo dayac ku yimaada waajibka la saaray wuxuuna sheegay wasiirkii sameeya magacaabis sharci darro ah inay sharciga la tiigsanayaan ayna maxkamad soo taagi doonaan
Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta safar degdeg ah ugu baxay dalka dibadiisa. Xasan Cali Kheyre ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo bishii la soo dhaafay ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta safarkii ugu horeeyay dalka ugu baxay wixii ka dambeeyay markii uu baneeyay xafiiska wasiirka koowaad muddo laga jooga 2 bilood iyo maalmo. Kheyre oo ay safarkiisa ku weelinayeen xubno kamid ah mas'uuliyiinta kala shaqeynaysa ololaha uu ugu jiro hanashada xilka madaxtinimada dalka ayaa gaaray dalka Djibouti wuxuuna noqonayaa dalkii ugu horeeyay ee Kheyre oo aan ra'iisul wasaare ahayn uu tago laga soo bilaabo bishii Febraayo 2017. Xasan Cali Kheyre wuxuu la kulmi doonaa madaxda ugu sareysa dalka Djibouti. Socdaalkiisa waxaa qayb ka ah qorshaha dardargelinta dadaalka uu ku doonayo inuu xafiiska dalka ugu sareeya uga bedelo madaxweyne Farmaajo oo muddo 3 sano iyo bar ah wada shaqeynayeen hase yeeshee ugu dambeyn ay ku kala tageen danahooda siyaasiga ah oo isdiiday iyo hanaanka iyo waqtiga doorashada qaranka. Villa Soomaaliya ayaa Xasan Cali Kheyre u aragta musharax kaliya ee qatarta ku ah qorshaha dib u doorashada madaxweynaha talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana wararku ay sheegayaan inay si gaar ah isha ugu heen doonaan dhaqdhaqaaqyada siyaasiga ah ee maanta uga bilaabmaya dalka dibadiisa. Kheyre durba wasiir ka tirsanaa xukuumadii Kheyre ayaa sameeyay magacaabis boobsiis ah kadib markii maanta digniin loo diray. fowdo iyo qas maamul ayaa hareeyay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya intii uu ku simaa xilka siyahayaha madaxweyne Farmaajo magacaabay Mahdi Maxamed Gule taasoo keentay in si boobsiis ah xilal loo magacaabo heshiisyo iyo sharciyo badan la mariyo. in ku dhow muddo 2 bilood waxaa socday howlo sharci daro lagu tilmaamay oo isugu jirtay xilka qaadis magacaabis iyo qoris shaqo oo ay ku lug yeesheen madaxda sare ee dalka waxaana ka faa'iideystay qaar kamid ah wasiiradii xilalka sii hayay oo iska bedelay agaasimayaashii guud ee wasaaradahooda isla markaana magacaabay xilal muhiima. wasiirada xilka sii hayay ee ku dhiiraday arintan waxaa kamid ah wasiirka saaxiibada la ah madaxweyne Farmaajo si ayaa wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga Jamaal Maxamed Xasan oo ku dhaqaaqay 10kii September talaabo uu ku baabi'iyay xogaayihii joogtada ahaa ee wasaaradiisa Cabduqaadir Maxamed Aadan una magacaabay agaasimo cusub kadibna isbedelada uu sameeyay waxa ugu muhiimsanaa inuu horaantii September wasiir Jamaal uu magacaabay Saciid Maxamed Axmed agaasimaha maamulkii maaliyadda ee wasaaradiisa. waxaa kaloo talaabadan oo kala qaaday wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiiq Warfaa oo isna agaasimaha cusub ee wasaaradiisa u magacaabay Cabdullaahi Maxamed Cali xilkana ka qaaday agaasimaha guud ee hore Cabdullaahi Jibriil Cali horaantii Agoosto.